السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي وين وايد السلام ميلول باد شوكتان ولا لا البرنامج كمان واحد نقصه قاضي هنا فالحمدي كدع ذي برلمان كصوماليات ما أنت مجال مقدشو arrintaas waxay ahayd ayaan darro weyn mana aha arrin iska dhacday laakiin waxa weeye fidnada uu ka shaqeeyay madaxweyne xasan sheekh ayaa sababtay fidnadaas iyo waxay tahay iyo sida xasan soomaali ula haray iyo siduu fidno u geliyey ayaan barnaamijkan ku lafaguraynaa waxaanse marka hore idinka codsanaynaa inaad barnaamijka like iyo subscribe ku samaysaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin baarlamaankii soomaaliyeed wuxuu noqday meel runtii aan wax wanaagsan ka soo bixin wax wanaagsan lagu qaban wax wanaagsan ka dhicin waa maray xubnihii maqan yihiin oo aan la helin tiro fadhigii fariisata oo wax qabata iyo markay isu yimaadaan in buuq iyo dagaal u dhaco waxaasna waxaa sabab u ah fidnada madaxweyne xasan sheekh uu ka dhex abuuray ummadda soomaaliyeed waa fidna waxa xasan sameeyey waayo ummaddii baa kala tagtay oo isnabcatay oo isdiiday xasan sheekh masaajidku tagaa wuu ina wacdiyaa waxbuu inoo sheegaa laakiin dhinaca kalena waxaasuu ka wadaa waa masiibo weyn marka baarlamaankii marka wuxuu noqday mid aan inaba waxba qaban karin waayo istuhun iyo kala shaki iyo isdiid ayaa soo galay kalsooni darro ayaa meeshii timid ma aha afkaar lagu kala duwan yahay tanu ma aha afkaar waa lagu kala duwanaadaa maaragtay baarlamaanada adduunka oo dhan oo fadhiya dadka ka shaqeeya waxay mabaadi kala duwan iyo afkaaro kala duwan bay leeyihiin laakiin haddana waa wada shaqeeyaan oo waxbay meel mariyaan inagu teenu saa ma aha waa dad qoloba meel ay doonayso ajando gooniya inay u hirgeliso oo dantii iyo maslaxaddii guud aan la eegaynin fideogii kan ka horreeya waxaan idiin sheegay in qaarkood dani matalayaan oo wuxuu dani raba ay rabaan inay suuro geliyaan qaar axmed madoobe qaar xasan sheekh qaar lafta gareen qaar meelo kale waa interest groups ma aha baarlamaan lilaahiya ma aha waa lobbying group oo kale lobbying dad u ololeynayo dad arrimahooda inay fuliyaan rabo laakiin ma aha dad arkaya haybadda sare ay leeyihiin iyo meesha saro ay joogaan oo ay tahay inay ummadda soomaaliyeed wax macno leh oo faa'iido u leh oo horumarkooda ka shaqeynaya ay ka shaqeeyaan xasan sheekh wuxuu rabaa inuu dictator inuu noqdo laakiin dictator ma noqon karo sababo badan dartood ma noqon karo horta marka hore nin karti u dhashay ma aha karti uu wax ku fuliyo nin u dhashay oo dadka soo jiidan kara ma aha waayo dictatorku dadka waxbuu u sheegaa wuxuu ku soo jiituu u sheegaa waa u gacan haadiyaa duruufahooduu ka hadlaa waxbaan qabanayaa buu yidhahdaa kan baan samaynayaa buu yidhahdaa midda kale dictatorku wuxuu muujiyaa inuu daacad yahay oo waxa uu qabanaya inuu daacad ka yahay oo uu karti leeyahay oo uu vision iyo aragti leeyahay waxyaabuu keenaa xasan ma keeni karo khudbadihiisa fiiriya meelaad u raacdo ma leh taariikh buusan kaaga sheekaynayn maaragtay rajagelin iyo barnaamij iyo wuxuu wado iyo wuxuu nolosha dadka si wax uga bedelay aanu kaaga sheekaynaynin wax wanaagsan oo uu qabtay baanu soo bandhigaynin intaa waa cabasho iyo kuwa ka soo horjeeda inuu yidhaahaye maxaad haysaan idinku oo adigu maxaad haysaa xataa hadduu xasan dictator noqdo u malayn maayo inuu wax qaban karo laba sababood dartood marka hore karti dabiiciya oo hogaamiyenimo ma leh ta labaadna waxa weeye daacadnimo ma leh labadaas waa meeshii bay ka maqan yihiin haddaanu marka karti lahayn oo la imaan karin aragti iyo waxqabad aanu la imaan karin daacadnimona aanu lahayn oo aanu doonayn inuu ummadda soomaaliyeed isku meel isku siman ugu shaqeeyo oo uu doonayo inuu ama caruurtiisa ama reerkiisa ama qaraabadiisa uu maaragtay uu kor u qaado oo fadilo iyaga taasina wax weeye dhibaatay keenaysaa waxna ku kasban kari maayo waxa haddaba halkaa ka socda oo baarlamaankeena ka dhex socdaa ma aha baarlamaan isdiidan ma aha wax aynu ku tilmaana ma naqaan laakiin waxaynu oran karnaa kharibaad tii ugu hooseysay inay tahay dad inaba aan wax ummadda danteeda ka shaqaynayn
oo wax rajo geliya ummadda aan ka shaqaynayn runtii waa arrin laga xanuunsado. waxaa taa weheliya inaanay dadkani arkaynba duruufaha ummaddeenu ku sugan tahay oo 40 sano ku dhawaad aynu ku sugnayn. jiilkii saddexaad ayaa ku dhashay dhibaatada caynkaas. qof baa maalin dhaweyd ii soo qoray oo yiri waxaan ku dhashay qax iyo magaciisii waana ku gaboobay. waa dhibaato taa naxdin ka weyn iyo guuldarro ka weyn ma jirto. xasan marka guuldarradaasu arkaa oo dhowr iyo 30 sano oo qayb ka ahaa welina wuxuu rabaa inuu guuldarradii inagu hayo. xaggee marka u soconnaa? xaggee tegaynaa? waxaa taa ka sii daran inaan dadka Soomaaliyeed hadlayn oo qaylinayn oo oranaynin war waxaan kuma jiri karo, war nolol baan rabnaa. ma dad soo bannaan baxaya oo le ma arkaysid baarlamaankayagu inuu wada shaqeeyaan rabnaa, inaad wax qabataan baan rabnaa. dad soo bannaan baxayo oo maaragtay markay shirayaan kuwa madaxda inta ku muddo haraado oranaya war heshiis gaara, annagu idinma xayiraan karo. wax walba waa la afduuba. hijacking wax walba waa la afduuba. war annagu afduub naguma haysan kartaan. nolol baan rabnaa, iskuulaan rabnaa, caafimaad baan rabnaa, guryaan rabnaa, biyaan rabnaa, nabadgelyaan rabnaa. waddanka iyagoo aanu isu soconnaan rabnaa. ummadda Soomaaliyeed waa kala xirxirantaa dhowr iyo 30 Soomaaliyeed, dhowr iyo 30 sano. qofka Muqdisho ka taga Jowhar ma tegi karo, ma dhaafi karo. ka gaalkacyo ka yimaada Garowe ma tegi karo, ama maxaan ku yiraahdaa Beledweyne ma imaan karo. waagi horena waxay ahaan jirtay intaad ka soo baxdo Boosaaso inaad tagto maxaan ku yiraahdaa Kismaayo aad tagto, Kismaayo intaad ka baxdo Hargeysa tagto. waddankii oo dhan wax socon kara iyo wax see marka ummad aan isu socon karin see waddan ku noqonaysaa? waa la is-iloobay. qoloba meel ayay go'doon ku noqotay. midnimadii iyo qarannimadii oo dhan baa baaba'day. Soomaali weyn markaan idhaahdo qaar baa ii soo qoroo yidhaahda maxay tahay Soomaali weyntu? weligood ma ay maqal, weligood looma sheegin. waa kala qoqobka iyo dhibaatada ina gashay weeye. arrimahan waynu fududaysanaynaa, laakiin meesha ay taabanayaan iyo meesha ayna geynayaan waa meel fog weeye. dadkii Soomaaliyeedna waxay ogolaadeen in 4 qof ay u afduubnaadaan. waxaa kaloo aynu noqonay waxaa la oran jiray waa kala bogsoode. qofku hadduu dhaawac gaaro gacanta aad ka jabto aan la kabin, hadhowto waa kala bogsoonayaan. ma kamayso meeshii oo isma qabanayso. intay maaragtay wixii ay nabarku ku yaallo oo weli dhaawac iyo dhiiggi waa in la isku xiro oo la isku hagaajiyo. laakiin hadday kala bogsooto saasay u marorsamaysaa, saasay u qaabtaraanaysaa. marka ummadeenna waxay noqotay ummad kala bogsootay. waxaynu caadaysanay wixii kharibnaay oo dhan. waxbaa la dilayaa, waxbaa la dhacayaa, okay baynu leenahay, waxba ka soo qaadi mayno. qof oran karaa ma jiro war waxaas waa khalad, war ninkaa wax dhacaya hala qabto. dad baa usoo safanaya, dad baa usoo gurmanaya. 100 jeer oo horaan ka hadlay waxaan idin Kenya baan idin qabaa'il bay leeyihiin, laakiin qofku hadduu dambe galo asaga kaligiisa mas'uulka ah. cid usoo safaraysa iyo cid difaacaysa ma jirto. isaga maxkamadda iyo wixii halkaas u maraya. laakiin inaga boqolaal baa ka sokaysa, boqolaal oday, boqolaal magaciisi marka kuwa xumaanta inagu sameynaya qaar baa usoo safanaya oo la dhax xumaanta ha sameeyo. kan safanaya ayayna dhibaato ku tahay xumaantii iyo wixii. baarlamaanka Soomaaliyeed waxa ugu wacanaysaa u dhaqmaan waxa weeye dadkoodii baa ogolaaday inay saa u dhaqmaan. idinka ogolaado raalli ka noqday. laakiin gabdhaha iyo nimanka baarlamaanka ku jira ama filla Soomaaliya fadhiya waxa weeye iyagu dhib ma qabaan. lacag wanaagsan bay qaataan, adduunkay maraan, caruurahoodii iyo reerahoodii meelo nabad iyo wadamada qurbaha iyo meelo badan bay u joogaan. adigu marka caruurtaadii waa silcaysa. biyo ma haystaan, oo nabadgelyo ma haystaan, oo shaqo ma haystaan, oo nolol ma haystaan. haddana ka waxaa kugu samaynaya ayaa difaacaysa. baarlamaanka Soomaaliyeed dadka ku jira waxaa loo baahan yahay inay xilkasnimo muujiyaan. fidnada xasan waxaa ka mid ah labada aqal buu isu keenay. labada aqal waxay ahaayeen inay maaragtay isdul joogaan oo aqalka hoose markuu sharciga soo gudbiyo ka kala ka eego, ka kore uu dib u eego. haddana wuu diidi karaa. kii hoose soo gudbiyey buu ka hore diidi karaa, oran karaa, ka kore diidi karaa, oran karaa waxaan iyo waxaan laga bedelo. waayo aqalka sare waxaa loogu talagalay dad wadaniyad iyo xigmad iyo waayeelnimo iyo uturid leh inay halkaa joogaan oo iyagu eegaya maslaxadda guud. adduunka oo dhan waa saas. xasan waa isu keenay wixii dhan buu isku diray. wuxuu yidhi halkaan ii fuliyo waxaan rabaa anugu. xataa sharcigii iyo waddankii sidii loogu talagalay inuu waxaan u shaqeeyaan iyo processkii iyo wixii oo dhan ayuu dhinac maray. waayo waa nin dan gooniya leh. waxaas ayaan daraa oo xasan uusan ogeyn
dhowr iyo toddobaatan jir weeye gormuu calfanayaa wuxuu u socdo I don't think inay cimrigiisu ka harayaan 5 sano ama 10 sano hadduu u bato walaalo maadaal ma 30 jir baa tahay ma 20 jir baa tahay يعني ambitionka iyo maxaan ku yiraahdaa in waxa kugu jiro aad sida maxay tahay waxaan maad ka tagtid dhaxal wanaagsan iyo ma garanaysaa si odaytinimo u shaqeysto ummadda si daacad ugu shaqeysto walaalayaal arrimaheenu waa dhib badan yihiin waana xanuun badan yihiin maybe inaynu dad ayaan darannahay anigu saasaan u qaatay dad ayaan daran oo ilaahay habaare inaynu nahay waxay soomaalidu ku mahmahaan ninkii ilaahay xoolo la doono dadkeedu siiyaa يعني waxa weeye haddaad dad wanaagsan leedahay waxbay tabcayaan waxay jecelo iyo magaciisii baa ka haya haddaynu malaha dad wanaagsan ahaan lahayn dad wanaagsan baa talada inoo qaban lahaa oo meel mariya arrimeena oo hagaajiya oo ina maqla oo naxariista oo tura oo ma garanaysaa aan ina xadin oo ina musuqin oo ina qabyaaladayn oo ina kala soocin ayaa inoo noqon lahaa madax laakiin ma hayno oo ayaan daro anigu waxaan idinkula talinayaa dadka Soomaaliyeed inaad hadashaan adliista hadashaan oo dhibaatada leedinku hayo oo aad ku jirtaan aad ka hadashaan oo aad ka gelgilataan oo aad ka banaan baxdaan oo aad tiraahdaan maya ka banaan baxa wax ka qora ka hadla ha maqleen madaxdu xafiisyadooda hortooda oo tubta oo wax tiraahdaan kuma jiri karo waxaan gees waddanka dhan ha ka dhaceen dadnimo ilaa aynu la nimaadno walaalayaal waxba ma hagaagayaan markaynu xoroobaynay oo SYL iyo ay inoo dagaalamayeen iyo sayidkii iyo dadku waa kacayeen haddii kale ma gumaysto miyuu iska keensiin lahaa xorriyadda meel walbana waa saas qofka xukunka haystaa hadduusan maskax wanaagsan iyo caqli wanaagsan lahayn oo uusan maslaxadda guud eegayn oo sharciga ilaalinayn oo wax lagu heshiiyey uusan ilaalinaynin waxa uma qaban karo bal xasan waddankii oo dhan baa kala tagsan boqolaal dad baa ka soo horjeeda oo awoodda ku haysta oo le waraynu heshiino markaasuu hadda wuxuu leeyahay dastuurkii iyo wixii la isku haystay baan sii kharribaya kii hore uu kharribay oo laga diiday buu qaar ka tegey seebuu u malaynayaa marka kuwa hadda maanta uu rabo inuu samaysto oo uu wax ka bedelo kharribaa inuu maaragtay ay u hirgelayaan ama la aqbalayo waa waali waa fidno marka waa waxaan idin leeyahay fidno ina gelinayaa wuu arkayaa inaanay waxaan soconayn laakiin haddana wuxuu rabaa inuu dhibaatada ina dhex geliyo dhibaatada iyo fidnada inuu ummadda Soomaaliyeed dhex geliyo rabaa imisaynu ku jiraynaa marka waa rajaynayaa sanadka maanta ha Soomaali in arrimaheedu hagaagaan aniga rajo badan iyo ma muuqato laakiin haddana waa inaan quud dareeyo oo rajeeyo in ilaahay maaragtay wuxuun inoo hagaajiyo waayo rajo beel haddaad noqoto waa meeshii ugu dambaysay waxba ma jiraan marka waa in rajo un jirto waa inaan wuxuun quud dareyno cabdi maxamuud qalla iyo barnaamijka idinka imaan jira machadka nabadda iyo bulshada walaalayaal sidaa ay nabadgeliyo